dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdirasaaq Ashir ayaa waxa uu sheegay Kismaayo gacanta dawladda inaysan ku jirinin qorshaha dawladuna uu yahay gacanteeda inay ku soo noqoto. In dhawaalana waxaa jirtay in qalabka warbaahinta qaarkood ay waraysiyo ay la yeesheen la taliyaha siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya Yuusuf Al-Azhari isna laga soo xigtay inuu sheegay dawladdu in ay xoog ku qabsan doonto magaalada Kismaayo oo aan gacanteeda ku jirin iyo magaalooyin kaleba iyadoo magaalada Kismaayona ay iminka gacanta ugu jirto xoogag islaami ah oo isbahaystay oo toddobaadkii hore ka qabsaday ciidamadii xildhibaan Barre Hiiraale oo muddo halkaasi joogay. Daba wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayaa magaalada Nairobi ku wareystay Yuusuf Ashari waxaana uu weydiiyey isbeddelka magaalada iyo sida ay dawladda ku meel gaarka ahi u aragto. waa dhab weeye cid meel xoog ku qabsata haddii raalli laga noqon maayo maxaa yeelay deegaanka dad baa u dhashay dad baana deganaa dadkii deganaa inay iyagu doortaan dadka muxuu ahaayey meesha maamulaya oo dawladduna ay la ogaato ayaa waajib ku yahay saas darteed dawladdu xoog meel lagu qabsaday marna raalli kama noqonayso. marka ma Kismaayo baad ka xuntiin mise meel walba xoog lagu qabsadaad ka xuntiin? dalka Soomaaliyeed oo dhan meel xoog lagu qabsado dawladda Soomaalidu ma ay ogola mana raalli ka noqonayso. kuwa hadda haysta ama maxaakiim ha ahaadaan ama cid kale ha ahaadaane waxaad tiraahday raalli kama nihin gelitaankooda ay magaalada galeen kuwii hore u joogayna maxaad ka aaminsanayeen? isbeddel xoog iyo xoog weeye laba xoog oo iska saaray meesha weeye shacabkuna raalli kama aha in xoog lagu muquuniyo oo xoog lagu qabsado deegaankiisa saas daraaddeed xoog beddelay haddee wax beddel uu keenayo ama wax wanaag uu keenayay ma jirto. marka maxaad horaan oga hadli weydeen oo hadda markay maxaakiimta yimaadeen aad oga hadasheen? horeyna waa ka hadli jirnay weligayana waa sheegi jirnay in dalkaas aan xoog lagu haysan karin ummadda Soomaaliyeed ee degani meesha inay tabaalaysan tahay dhibaato badan aragtay saas darteedna ay waqtigii la gaadhay hadda in doorasho xor ah loo sameeyo dadka deegaanka oo iyagu ay ismaamulaan dawladduna ay halkaa ku ogaato hoosna yimaadiin dawladda maxaa federaalka ee ku meel gaarka ah. Azhari waxa la isweydiin karaa marka aad saa u hadlayso Kismaayo aad ka hadlayso shacabka deegaankan aad ka hadlayso ka dawlad ahaan intaad idinka reer Kismaayo ku ogeedeen maxaad u hayseen ma nabad baad u hayseen ma dagaal baad u hayseen goorma Kismaayo idinku dambeysay maxaad kala socoteen? sidaad ogsoon tahay mar alla markii ay dawladdu ay baydhabo tagtay ay ka guurtay Nairobi isla markiiba madaxweynaha iyo dawladdiisu waxay magacaabeen maamul dhisan oo waxa la wixii loo baahnaa ee maamul ahaa loo dhammaystiray maamulkiiyo sidii u dhisan oo dawladdu aqoonsan tahay oo gacan ay siisay dawladdu iyaa lagu soo duulay oo maamulkii la dhisay la burburiyey. waxaan ictiraafsannahay maamulkii waagii laga saaray meesha ee dawladdu ay dhistay ee u dhammaystirnaa ilaa iyo heer cashuur qaade ilaa iyo laga beddelayo oo doorasho cusub imanayso shacbigu dooranayaan xukuumad cusub ama maamul cusub annagu weli waxaan ictiraafsannahay maamulkii waagaa dhisnaa ee laga saaray magaalada Kismaayo. laakiin maamulkaas isagii laga bixiyay Kismaayo oo muddo hal sano iyo xoogaaba ka maqnaa goboratoorihii iyo gudoomiyihii degmada iyo maamulkan aad sheegayso soo isagii Kismaayo laga bixiyay ka maqnaaya qaarkood Nairobi joogaan qaarkood Baydhabo iska joogaan oo meesha ay ahayd meel ay ka talinayeen kooxo qabiil ahaan isu bahaystay. haddee waataan sheegayo xoog baa lagu muquuniyey maamulkii meesha ka dhisnaa xoog baa loo sheegtay xoog baana meesha lagaga saaray annaguna qoladii xoogga kaga saartay dawladda Soomaalidu weligeed ma ayna ictiraafsanayn waxayna sugaysay ilaa iyo inta muxuu ahaayey maamul dambe shacbiga uu doorto uu ka dhismayo. marka taa goormay imanaysaa haddii idinkii tabar aad u weydeen dadkii kalena sida aad sheegaysa ee magaalada haysta aadan ictiraafsanayn oo aadan aqoonsanayn? Kismaayo waxaan u haynaa in dawladdu ay mar dhow hadduu ilaahay yidhaa ay tallaabo ka qaadi doonto iyadoo la kaashanaysa dadka deegaanka u dhashay ama deegaanka iska leh iyadoo la kaashanaysa ay ka saari doonto dadka kan hadda xoogga meesha ku haysta hadday maxaakiim yihiin iyo hadday shabaab yihiin iyo hadday waxay doonaan yihiinba waxaa lagu heshiiyey oo Jabuuti lagaga heshiiyey waxay ahayd in nabad lagu soo dabaalo dalka doorasho xor ana laga sameeyo deegaanada ay dadku degan yihiin ee Soomaaliya. haatanna tallaabay dawladdu ka qaadaysaa ma eegan karto mana dhowranayso muxuu ahaayey xoog ku beddel waxaa loo baahan yahay shacabku inuu dadkaas dawladda la soo xiriiro oo markaas la isla dhiso marka dadkaas laga saaro meesha la dhiso
muxuu ahay maamul loo wada dhan yahay marka talaabadaas weerar bay noqonaysaa oo Kismaayo waad weeraraysaan ama weerar ha noqoto ama si kale ha looga saaro laakiinse xoog laguma haysan karo magaalada Kismaayo sidii uu hadda mar dhaweydba madaxweynuhu sheegay iyo dawladdiisu